dadka Soomaaliyeed dhamaan waxa leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida qaasaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aniga ka tirsanahay waa ciidan Soomaaliyeed wax qabiil yiraahdo kama jiro ciidanku waa ciidankiini waxayna diyaar u yihiin inay difaacaan dalka iyo dadkooda ayagoo haatan aad dareemi karto duruufaha ay ku sugan yihiin xaaladaha taagan wadanka ka jira waxa kasta ay noqotaba saas daraadeed waxay diyaar u yihiin inay difaacaan waxa laga yaabaa askariga maanta shaqada u dirayso inuu caaw caruurtiisa ay baahan yihiin ama xaaskiisa xanuunsanta ilmihiisa xanuunsan yihiin asagina oo shaqada qaranka diyaar u yahay inuu qabto uusan caafimaad ahaan u dabari karin xaq dhaqaale xaq kastaba oo asagii intaas xaafadiisa inuu soo aadi karin oo door bida inuu qarankiisa difaaco shaqada qaranka u dhafraayo dhaxantaas uu jif qabowgaas roobka uu la daayo adigana aqalkaaga jiifto ama kayf kugu socda ama ruuxadaada ay ku shidan tahay ka saas la jeedo xanaan dadka fikradaha xun qabo wixii hore laga tagay waxaas ma jiraan ciidanka waa ciidankeeni soo dhawaada mid qofka dadka oo bil aadan mid xun iyo mid wanaagsan waa isku jira hal qof haduu xumaado maaha ciidanka inay wada xun yihiin gabi hal sarkaal haduu xumaado maaha ciidanka inay wada xumaan karaan ciidamada qalabka sida way badan yihiin qaasaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed cutubyo badan ay leeyihiin hal askari wax xumaan kara hal qof bil aadan ana waay qaladna waa la saxaa laakiin qalad ku sax lama dhaho taas la jeedo waxa kala jeedina shacabkeena inay soo dhaweeyaan ciidamada la shaqeeyaan anagana waxa diyaar u nahay u balan qaadinaa sida hore u balan qaadinaa nafteen u horeeyno ina mar labaad diyaar u nahay ina nafteen u horno soo dhaweynayno